aga war soo dhawaada war meesha jigjigaan iga soo salaamaya caasimadda dowlad deegaanka Soomaaliyeed caasimadda Soomaaliyeed meesha aan isleeyahay sanadadan dambe ama sanadada soo socda Soomaali waa ugu imaan doontaa markaan qiimeeyo dhan walba ka eegay deganaanshaha dadku aan maaragtay qof walba dantiisa iska wato waxaan kaloo aan aad iyo aad Soomaali meel uu joogaba ugu dhiirigelinayaa oo nafteyda ka bilaabaya war jigjiga la soo camiro war la isku yimaado Soomaalida ku nool ka soo jeeda hadda dhex maraysa saacad walba taagan deegaankani wax walba minaha uu ku wanaagsan banaanka hadda uga baxda haday beera tahay wax soo saar ayuu noo waa dhul beereed iyo dhul lagu noolaan karo waa dhul aan roobka ka qaadayn waa dhul Soomaali u baahan Soomaali badan waliba inta joogta saddex jibaarkeed inay yimaadaan xaq bay u leeyihiin waa magaalo soo dhaweyn oo Soomaalida laga jecel yahay waa magaalada laftigeedu dhulka laftigiisu ku leeyahay Soomaalidii meedayay soo batay soo galay hadaynan ku soo badan imaanin ganacsiga maalgelin dalxiiska maalgelin madaxweynaha joogana xaqiiqan sheegay madaxweynaha magaalada wadooyinkeeda maayarku waa ku shuqulaada laakiin mar walba ninka midida daabkeeda haya minaha marka mashruuc loo keeno oranaya okay ku habboon magaalada hore u socda madaxweynaha dad ku kalsoon tahay mashruuca uu hore u soconaya sayidka halka loo dhisay goobaha dalxiiska sida Shabeelle magaalada duleedkeeda ku taal tuulada dalxiiska Shabeelle minaha hawlo badan marka indhayso wala dowlad deegaanku maanta madaxweyne wanaagsan bay nasiib u haystaan dad badan ma fahansana dad doonan xaafadaha ku dhaliidaan waxay doonaan dhinac walba ka eegan war hadii amni la haysto oo deganaansho la haysto oo ganacsi kala socdo anigu waxa kaliya markaan jigjiga indhay waxa weeye aan madaxweynaha deegaanka iyo maamulkana ka codsan lahaa Soomaalida hadda waa la soo dhaweeyaa inay maaragtay dadkeenu Soomaalida waxay u badan yihiin dad aad badanka sharciga iyo u qaato sharciga si u hogaansama ku yara adagta sababtoo waa dalku Soomaali meel joogto 36 sano wax ku dhow ama ka badan ba ay bilaa dawlad iska hayd marka way iska socdaan Soomaalidu waxaan ka codsan lahaa dowlad deegaanka inay Soomaalida u fududeyso inay dalka haddaba in badan meel badan way u fududahay laakiin dariiqa dheer la soo marayo ama xaggi waqooyi bari oo Laascaana ka soo bax ama Puntland ka soo baxo Garowe ka soo bax ama dowlow halka ka soo gal meel walba amniga la sugayo tigboontiya yaala hooyada caafimaadka u socota dhalinyarada dalxiiska ah minaha amnigi iyo dadkii baa la kala saaraya tahriibka dadka dhalinyarada tahriibisa la baaraya dad qof badan oo sharcigi wato la weydiinaya xataa meeshuu ka soo qaatay oo la oranayo adeer la hubinayo oo adeeg badan waa iska jira laakiin tanaasul badan iyo isku dulqaad badan la muujiyo si ay Soomaalidu uga baqin inay caasimadda jigjiga timaado inay ganacsi ka furato minaha markaad jigboontiga marayso hadii aba kugu fulan tahay bade ciidankiiba maxad ciidanka uga baqaysa ciidanka amnigooda sugaya sharciga lagu weydiin hadda sharcigadan xataa runta u sheegi karto caafimaad baan socdaa waxaan u socdaa family-ga jigjiga degan waxaan u socdaa inaan dowlad deegaankii ku soo dalxiiso soo arko taaladii sayidka iyo tuuladii Shabeelle iyo isku socodkii Soomaali dadka Soomaaliyeed waa dad isku luqada waa dad isku midaba waa dad isku diina wax kala xadidaya ma jiraan system-ku doono meeshaas ka shaqeeyo Soomaali waa soconaya Soomaali kala meeshu ku soo xooluhu urta isku gataan meel loo jiro Soomaali kala meel jooga ka istaagi maayo ama sharci haysta ama yuusan haysanin madaxweynahana sidan xog ku hayo dadku isku socodkooda u fasaxayo maartay dib badan hadda kama jiro sidii waaye ahayd maaha marka wada arta waxa mashaariic iyo horumar iyo wadooyinka iyo dalxiiskii iyo xusuusiyo taariikhda si sayidkii meel walba laga taagayo maartay laga dhisayo cagaarinta
dhulkan inkastoo maaragtay galbeedkan fog iska yahayba roobkiisuna uu iska badan yahay cagaarkuna maaragtay roobka hadduu bato dhirtii la beerana markii waa baxaysaa laakiin markaad magaaladii Jigjiga qiimayso oo fiiriso sidii wadooyinka waaweyn oo quruxda badan hadda new Jigjiga loo sameeyay ganacsigii qurba joogtii oo dalkii aad ugu soo dhiiranaysa meherado badan oo maaragtay aad is oranaysa dee u baahnay Jigjiga oo dee kuwii hore ka casrisan oo laga furay wax walba aad ka helaysa wixii maaragtay qofku uu dalka dibadiisa ku cunayay iyo hadduu dalka ku cunayay dhan walba aad ka helaysaa cunadii kale waxaa iyaduna kugu diyaara cuno wadanigii iyo caanihii geela cadii dee waad garanaysaa xaafadaha halkaa dega dee maaragtay reerahayna halkaa dega waxaa dee waa dhaqanka waa geel iyo caano geel iyo baa ma garanaysaa dee lagu xantaa intaasina waa kugu diyaar marka waxaanu faraynaa wataa Jigjiga war dunida meesha doonta ka joog Soomaaliya laftigeeda meesha doonta ka joog Soomaali galbeed caasimadeedii wata hotelkaas waxaa la yiraahdaa Jigjiga International Hotel hotelkan uu ku tago xaqiiqatan markuu reerku ila socdo hotelkaasi commentiga way igu soo weydiin kartaan hadaad nambarkiisa meesha lagala xiriira u baahataan masjid jaamici baa kugu soo jeeda wadada halboolihiisiiba ku yaala Jigjiga International baa la yiraahdaa walalkiisu waa special way showerkii kuleelkii qabowgii restaurantkii xataa ku leeyahay oo maartay xil walba nambarka ka dalbanaysa oo qolkaaga jooga shaqaale wallahi aad soo dhaweyn maartay aad u soo xiisayso soo noqonayso waxaan ku yiri mar hadaad degto 100 jeer baa soo noqonaysa marka arrin walba macal tigirka meesha u sii marka u duulaysa isla xafiiska tigirkii wax walba ka goosanaysa wax walba banaanka uga bixi meesha waa kugu diyaar intaan aan uga baxo Jigjiga International Hotel oo aan shakhsiyan macmiil u hay qof walba marka magaalada Jigjiga ku soo socdo aan hore u imaano leh xagaan ku tagaa taro ka fakaraya oo maartay meel hotel iska VIP doonaya nambarkiisa halka maartay description kan igu reebi doona aan dadkayga igu xiran iyo Soomaali maxad meel walba joogto u daneynaya halkaas aad kala socon kartaan hoteelada ugu caalamisan buu ku jira aan u soo noqdo magaalada waxaa kaloo ka muuqda dalxiiska iyo wax walba markay kordheen aad baa loogu soo guriga noqday dadkeenii dibadda maaragtay xilli hore aaday dadkeenii Afrikada kale aaday ganacsiga aad buu soo badanaya sababta waxa dabaq iyo dhismo cusub laga dhisayo waxay ku muujinaysaa baahi dhismayaal cusub oo badan oo loo baahan yahay la bilaabay qof walba uu ku baraarugay soo maalgashaday malaha ma sha Allah waxaan ku qiyaasi karaa waa Jigjigadii hore Jigjiga cusub baa bilaabmatay oo uu jihaysatay inay la tartanto waxaan ku qiyaasi karaa in waxay doonaysaa Jigjiga inay la tartanto aad sababay tartan culus la galaysaa sanadada soo socda waxaan filayaa haddii tartankaasi ay baratamaan inay ka qaadi doonto sababta sida lagu wada hadda systemka Jigjiga waa dadaalaysaa dadaalkeeda ma yaraysanayso muuqaalkani waxa kale uu tusaale inoogu jiraa Soomaali meel ay joogtaba ama Muqdisho ha joogto Garowe ha joogto Laascaanood ha joogto Kismaayo ha joogto ku dayasho wanaagsan haday nadaafadii iyo dhirayntii noqoto cagaarinta iyo dhirtu waa nolosha kow roobku inaga qaadi maayo hadeen dhirta badino dhirtu roobkay soo jiidanaysaa hawaday ku nadiifinaysaa waxyaabo badan ayna dareemi kan oxygen waxaad helaysaa raaxo abanku sababkaaga nafisaya ku ducaynaya marka wata Jigjiga meeshaad ka laabatay iyo laabkaad gashaba waxa weeye goob dalxiis waxa laga furay iyo meel lagu nasto iyo meel aad hawadaas ka qaadanayso bahal kursiga lagu dhigo ma garanaysaa hawshu waliba waa faan oo le faray kama qodna marka ku soo dhawaada meel walba joogtaan dalku waa dalkiini qoomiyadaha kale inaad uga badataan bala doonaya magaaladii maal gashataano ku soo dhiirataano timaadaano dhakhtarun meeshan ayaan loo soo aadin dadku waxaad maqlaysaa qof walba gaariga saaran wuxuu ku leeyahay dhakhtar baan u socdaa Jigjiga dhakhtar u aadaya Ethiopia
war meesha ganacsiga fikrad la imaado kaalay oo maalgashada oo dega oo idinkaas kale waa qof yar qof kule ka jigjigan ganacsiga soo indheeyaan doonay aamin meeshan adaa iskale kaalay haddaad buuhood la joogto haddaad marqaan joogto haddaad goob joogto haddaad booq joogto gobolkii dool haddaad wardheer joogto dowlad deegaanka dee xaafad gooniya male Soomaali Maxamed oo dhan baa imaan karto maal gashan karta waa in adiguna aad nabad gashaa lagaana nabad galaa ganacsigaaguna waa ku soconay population badan baa jooga lacagtii baa shaqeynaysa dalku meeshu leedahay si lagu eegi maayo sababta waxa ku cadeynaysa kun qowmiyadood baa saaw yaacayaba yaa ku garanaya adeer hawshaada wadanaysa muhiimadu waxa weeye inaad nabad gasho adigana lagaa nabad galo waa goob degan weeye cimiladeedu aad u wanaagsan tahay horumar badan inuu ku socdo indhihiina ni macalina indhihiina ayaa ni macalina channelka kor ha loo qaado insha Allah muuqaalo dambe inoo balana ma salaam